عاوز شركة يجتري وحده دارية هاي من بقى قبيه وحيري سو وحن إلى بابا ننحم ما أوجيسيبول أنا بريها وحن كم هذا ضياش عن ميديها كوبضنين إسكا مصنع مددر وحون جايي أفهمون كالصعداء فرع بدن لا إسكا صوت بدر عاية لا يابنا مرون لها ورما لجوان توب إذا بدروين كيا أفهمت الله استبدل جايو ما يدتكم مرون سكلا يابنا إن بدن لها لكن هذه أيام مش هو إذا صوت هرتو معلم بني هذلي وحن عاو كم مربو إنه ضياش هذا هل كان فرديا إن أنا هذا الله كومن كان نحنو وأنو أرجنو إنه يوم ترى سومالان يدقان كانوا كسوت شيء نما دمتوا تكجرتوا وحمدي هجرت لجار كاي وضيال جودي شيء أو كم إذا جودي ولا هاي حسب جواتني ما قعنوا أنا جاي يجوا بكسوت شيء ننا شيء جناي يقول هوان مثله ما أنا أهم كي كوباد إنه عاصو كلاو هدلان هذا ديبو داوتو يوتيوب يده أو ديبو أكتو هذا الكي جربت كو هدلان إيه كي معناتي أي بورتك عن اللي بيحفلين كو هدلي وزين وحول الحياة مشت هذا الله يسكن مدهم بيا هذا هذا يهرب ولا بامركو يا جوي هسي مركي ولا يا عمبرة أي واحد كجرتي هذا الكان أنت ميرنا هو أنت يا برورتها هاي أفكار ممكن صوب حي أنا قوم أقان هسي أحمد وحي لا تهاي إن أنت ناود ديسان هذا الله ذي ما كان سكوا هدليه ما هقاردتك كعصب ووح مالون تأيسر ترى قبتان بالنوعاس أي هدلا أو مدن الله يابطه وحسيس لها وحيكون أنت قاتينه أي وحكو قاتين لبني آدم كهدو مرخل دمو الله بخل دمو صدق خل دمو تدخل الله يابو أو أركض كلهم الله يابي دواء ودبس كون نقضة وحس لها مستجدة دي هراء إيه خلدة دي هراء إيه هنشباده دي هراء بنتها هاي شو بتشرين بيحكوا قاتينه دي بيسكرها جعيانه وحيردنا ورم حاخلدن سي ummadda ula yaabtay dareemaan maasla laakiin waxa ii muuqata caawa inaan waxba u kordhin waxaan leeyahay dadkana kuma cusbinin wajiyadiinu hadalkiinuna kuma cusba asal ma doorshayaal baatinaan waxba bedeli karin oo waxba ku soo kordhi karin oo waxba qaranka yeeli karin oo waxba sharafta reerka yeeli karin oo cidda u adeegaysaan iyo waxa doonaysaan aan waxba ku kordhi karin nimankii galabta halkan laga arkay miidiya ka hadlayay ee koofiyada xidhnaa ee xisbiga wadani oo gudidu ee magaca gudida garxajis sheeganayay waxaanu galabta horta halkan ku cadeynaynaa magaca ay sheeganayaan ee gudida u sheeganayaan inaanay ku matelin horena wixii ay u yeeleen iyo dhaawacyada ay gaarsiiyeen buu lagu dhutinaya maantana nabar cusub bay kale oo barooya bay u celiyeen horta magaca ay tiidayaan maalin iyo habeenba ee aanu ka soo wada jeedno odayaashayada halkan fadhiya xaal baanu ka siinanaa magaca iyo inta sharafta leh ee dhibsanaysa ee kamida reerka ee maalin walba kula yaaban xaal baanu ka siinaynaa waxa kale oo xaal ka siinaynaa ilaa loogama taag hele maalin walba reer ay aflagaadeeyaan oo aan xildhibaanadiisa ha aflagaadeeyaan ama ha aflagaadeeyaan madaxdiisa dhaqanka ama ha aflagaadeeyaan madaxdiisa siyaasadda maalin walba reer ay aflagaadeynayaan oo ay magacayo ku aflagaadeynayaan waa u joogtay iyagana waxaan leenahay waxa ku taqaaneen weeyaani waxa la geelo haduu labada hore habeeda ku leeyahayna waa gad ula soo baxay haduu labada dambe ku leeyahayna waa gad uu lahaan jir haday galabta saaweeydaan oo hadleen de waxba cusub may soo kordhina waa hadalka yoro jiraa inta halka fooda fadhida Soomaaliland waxba ku yeeri kari maayaan iyaga iyo qaar kala ku kororsadaan toonna waxba kuma yeeli karaan Soomaaliland Axmedo waxay la tahay buu intii uu daysaanay war labadii oday midna qurbaa ka hadlayay midna ceelaf way ka hadlayay hanjabaadoodii bal horta inay caanadaadiyaan iyo kale inay yara sugtaan bay ahayd hadda isku darsataanba labadiina hanjabaadoodba wallahi baydaan Soomaaliland iyo qaranka midna waxba yeeri karin horta qaranka xildhibaanada Soomaaliland waa xildhibaanadii qaranku doortay mid walba la doortay inuu sharaf u mudan yahay xaqna wuxuu u leeyahay codkiisa inuu bixiyo gudoomiyuhu doonayana inuu codeeyo waa xaq dastuuriya oo aan cidna ka qaadi karin walaa xisbi baan ka qaadi karin walaa dawlad baan ka qaadi karin gacantiisa xor buu yahay qof qasbi karaana ma jirto waana xaq dastuuriya oo uu leeyahay xisbiyada ay ka soo baxeen iyo isbahaysiga ay u ololeynayeen ay ku hadaaqayeen ay lahaayeen isbahaysi baa
لو عدي اسبدل وردني والبحسب دونها كشرحنا هذا إنه والبحلبان كيسوا لسوا بحي أنا كحلبان كيشرحنا حلبان هذا يشرحنا قارنا كل مية كشرحنا قارنا وطني بكشرحنا الله بدأ بس اسكم متى ما نقول لينا ينقول داي وأول أم بقول كل مية هذا أم بقول وطني هذا أم بقول عدا هذا حسب جوا أول لقى صبحه ذلك اللي أفلقات ديك ما أنت هذا الله ده حنا عن قوانين لو يري مدحونها قرن كتفرد سومال الله با كميد ما أهم مركي يقول الرئيسية ساء ولا هذلا ومدحونا دلقات بدن ومدحونا عن هذا الله ده ما أنت لو قول لي هي لو قول ما ندعي 20 مركو شخص ده هاي وهالقا تاجنايه وحأوسه شيء ده يو وقول القاضي يا وقسم ريا وإلى علينا يا وحسانة قرن كيو هو هي حقنا وقول لي ينو كحش هذا أو كو آمسناده أو كو عبانين أو كو علاتمين عيد استشوا ما أنت قريس كسر طب ما أنا رك عيد دمر كالك اللي دعي قريها لك اللي دعي وحبال اللي سكوا بسنة ما يلوح على سكوا يستمع أنا رك مركا واحد ما نقول بقبيل كهنا يا وامعي والسؤال سويدين لي لأن يردان ويدينيا وضياشان ويدينيا والعد الله يستيل اللي يستيل يا ما أنت اللي يستيل يا وايو محاسن اللي يسكت لي يا يستا محل سكوا يستا والسياسي وحدونية si sharaf loo wanaag la siyaasiga wax ku doon ku diidi mayno waan kugu taageersanay wixii wanaaga wixii dalka iyo dadka wax yeelaya ee ubadka soo kacaya dhalinyarada wax yeelaya kuma raacsanin waxaan leeyahay war qoys walba madax dhaqameedkaaga waan ku celinayaa war meheradu furta oo nimanka baahidooda daboola si ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan uqaashana waxaan leeyahay عقالك واحد كتريان مكتب سوريا ورمجه بقى ضيعان أنا جاي نقول صباح ستي ما نقول بقول قال الله فريا مقبل الويدينية عقاشة تقاني عقاشنا كرسي السياسة يفردا كوفية ده هديقة جامعة ده هقلا كلية السياسة ده قلا إستشار شرحة أنا جاي تدورن يلي ويا كل نقطة وحي على هيدينه نقول لهم بدح دقمة ضوبة شغال هذا وحي هيد وأنا بضين ويسكتشيد ووناك وقروح مدح رقميتك الشقدي سواتا كل نقطة شغال هذه بالله وحنا كذا واقعية شر بانو كل واقعية الناس سووناك أنا مرتي قاضية شركة سير سووناك كل عيا وأنا نقبلنا كرعج بانو كمدني أو كدلاني أو ندالي أو أنت كسول لعني أو أفرتن سنو شقيني وأنا دنكر حجز بانو دنكر كلنا بينهم ما تيجين قد كرحجز ما كانوا سمعيننا سووناك بانو شركة قبلنا reerka waa burburiseen siyaasadda iyo dhaqaale iyo magacba aniga inta salaadiinta halkan fadhidaaba shirkaasaan dhawaan ku baaqaynaa guddi garxaj hadduu samaysan waayna mid waa kala jajabiseen anaga mid garxaj isku duubta samaynayna waxa weeye isbahaysan waxba kuma tareysaan oo ka ragii wax ku gorgortami leedeen idinka tagay garxajna waxba kuma tareysaano waa la idinka arkila hadaa garxaj guddi daacada u tiin guddi wadani baatiin weliba wax kale oo naan hoos u sii gaadhayn baan ognay anigu man ka xog galsan man ka weyn oo ragan wax kale oo naan hoos idin ku sii dhaafeen oo media u diidayno garaac markuu sii maadaan idinku cadeyn doono ayaa tiin waxaan idin leenahay beelaha baarlamaanka soo baxay muddo maalin ka yar iyo marti nin ka yar midna lama arag soo maaha de waaba biri hadii nin gacantiisa la qaban maaye garxajku horta de waa reer jira waa reer balaaran garxaj ismeel kaliya ma jooge hargeysa iyo saddexda xusbiba waa jooga hadday garxajisnimo ku hadlayaan de saddexda xusbiba ha ka tala galeen oo ha ka arrimiyeen laakiin inay meel gaara inta istaagaan garxajisoo yidhaahaan taasu maaha tale xaalad abuur bay u muuqataa maanta waxa weeyaan shirgudoonku wuxuu leeyahay qawaaniin lagu doorto maynaan kula ballamin xildhibaanadaynu dooranaynay haddaad halkaa dhaafto yacnigii waad dambaabtay ayuu iminka hadalkuu muuqdaa xildhibaanka waynu soo saarnay si kasta oo aynu ku soo saarnay waxaynu soo saarnay xildhibaan inuu yahay xildhibaanada waddanka ka mid a waxa weeyaan halkii uu maslaxad u gartay isagaa tegaya dadkii waxaa la geliyey in xildhibaanadii lala coleysiiyey xaggana qaar baa ka tegey xaggana qaar baa ka tegey sidaasina sax maaha rag waaweyn oo madax dhaqameeda
oo iyagu haddii meeshaa la dhaafo yacnigii qofkaa in la toogto ay gaadhsiinayaan ayaa jooga ma garad waxa weeyaan saddexda xisbi qaran waa saddex xisbi qaran oo ummadda u siman haddii la yidhaa xayndaabkaa xisbigaa lama dhaafi karo dee waa dhibaato annagu xisbi maanaa dooranay ilan baanu dooranay ilanka war soo saarnay nabadgelyada xil baa inaga wada saaran waxaan ummadda ugu baaqaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo inaan waddanka khalkhal la gelin arrintanna halkaasay leedahay in saa lagu ogaado dadkuna ay waxaan ay shubayaan iyo sheekadan mala'awaalkay wareejinayaan in waxba ugu jirin inay iska iloobaan xildhibaanada soo baxay iyaga waxaanu idinku baaqaynaa inaa qofka ugu aragtaan inuu macquul yahay oo inaad doorataan xisbiga wadani wuxuu samaystay guddiga garxajiso bixiyey nimankaa beeshiina waad ka dhex saartay ayaan leeyahay beeshoodii ay cuqaasha ka ahaa inay ku dhex jireen adigana nusqaan bay kuu keeneen waxaan u malaynayaa haddii uu xisbiga wadani doonayo inuu dalka madaxweyne ka noqdo inaanu garxajisoo qura u baahnayn sababu maalin walba guruub odayaalahoo idhaa garxajis baanu nahay uu u soo tubo adiga waxyeelay ku gaadhsiinayaane arrintaa dib u eeg baan anugu odhan lahaa xisbigaa la yidhaahdo wadani midna waa madaxweynaha oo madaxweynuhu haddii uu wax khaldayo amba wax samaynayo ninkii xisbigiisa ka soo baxay kuwii xisbigiisa ka soo baxay ee u tartamayey inay deegaanka ka noqdaan caasimadda inay meeyar ka noqdaan ayuu u tanaasiliyey kuwii xisbiga wadani ka soo baxay taasi waxay caddaynaysaa danta dalka iyo khilaafka isagoo eegaya oo ummadda danteeda ka hadlaya inuu hawshii waajibka ku ahayd inuu qabtay waa inuu ku ammaanan yahay waxaan leeyahay cuqaasha iyo nimanka u banbaxay tifiyada taagan habeen iyo dharaar ee waagii baryaba hadlaya garyaqaana maaha oo kuma naqaano inay shuruucda dawladda xifdisan yihiin garyaqaankaa ka hadla waxyaabaha dawladdu qalluuciso ninka xeerarka yaqaana ayaa ka hadla iyagu dhaqankeed inay ka hadlaan arrintan maanta taallaana waa system siyaasadeed iyo baarlamaan isdooranaya iyo constitution dawladeed inay cuqaale ka hadashaa xaaraan bay ahayd hay-adaha amniguna nimankan qofkan wuxuu doono ku hadlaya ee odhanaya xildhibaan baa la xidhay een warkii caddayn karahayn ee odhanaya madaxweynaha laaluush bixiyey een wax caddayn karayn in loo yeedho dadkan wax laga qoro hay-adaha amnigu ay wax weydiiyaan xogta ay hayaan oo wax laga weydiiyaabaa ayaa munaasiba waayo lama odhanayo maanta madaxweynuhu doorashadii dhacday eexbuu ka galay ama si gaaruu uga shaqeeyey tan maantana sidii unbuu ka yahay laakiin waxaa la moodaa in dad dan kale le ay waxyaro qalloocinayaan waxaan leeyahay madaxweyne horta dee nabadgelyada reer somalilan garxajisuma xil saarna nabadgelyada inaguna iyo inaan xumaynin horta cid kaloo ka hadlaysa lama arag inamadiinan le nabadgelyaa xumaanaysa dee anagu nabadgelyo xumaanaysa ma aragnee waddanku waa nabadgelyo codkuna 82 inanee la doortay buu gacantooda ku jira waayo nimanka garxajis sheeganaya fadhiya wadani bay ka tirsan yihiin oo gacani wax buuraya wadani ku magacaabay waxa tiin guddiyo nimanka hadda xitaa wixii kama jirto waa wadani nimanka wadani ee waxa uu garxajis magaca anaga oo garxajis oo dhan baa gudoomiye garxajis baanay oo rasuul ciise erziqani iyo maxamed yusuf bin maxamed cabdiraxmaan bay kaga tagay anu aqtiratani idin manoogi waxaan leenahay saddex sagaashi bay nimanka garxajis meel fadhiistay garxajis baan fii tooba ilaahay inta xaq u yaaceen maxay naga gaadhay maxay hesheen maxaa ka saarteen qariib ma noqoteen ma isbaabiiseen war waddanka ka xishooda ka daaya magaca garxajis magaca garxajis sas baa laga qaaday ka daaya ummaddu sheegan mayso qolo